shirka madasha hogaamiyaasha qaranka iyo maamul goboleedka ka jira dalka ee maanta galinkii dambe ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa looga hadlayaa dhamaystirka howlaha la xiriira hirgelinta doorashada dadban ee dalka la filayo inay ka dhacdo sanadkan 2016 sida dhamaystirka ansixinta liiska 135 oday dhaqameed ee horay u soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2012 dhisida guddiga xalinta khilaafaadka iyo arrimo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka madasha furay ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid muhiim ah isla markaana loo baahan yahay inay ka soo baxaan waxyaabo wanaagsan oo qayb ka qaadanaya midnimada iyo horumarka dalka Soomaaliya ayaan u rajaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan madasha oo aan leeyahay tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee xariiqintii guusha lagu gaarayay ayaan ku jirnay annagana ilaahay ha fududeeyo inta bisha Ramadaan laga yiri waan qabaa waayo fiican iyo fursad fiican weeye alla badiyo inta Soomaalida ee cimrada aaday ee xaramka ilaahay tagtayna waxaan leeyahay loo soo duceeyay sida caadada ee Soomaaliya shirkeennii madasha wada tashiga magaalada Baydhabo waa loo furan yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa tilmaamay in hogaamiyaasha Soomaalida looga baahan yahay in wadanka ay uga faa'iideeyaan fursadaha muhiimka ah ee ku xeeran sida ay u wajahayaan arrimaha hadda taagan aan aad iyo aad hoos ku xariiqaya arrintii ku saabsaneed danta caamka mar walba in la hormariyo waxa xaqiiqo ah kelmadda ah danta caamka marka la helo oo kaliya ayaa midda gaarka la heli karaa dadkii danta gaarka ah bas jiriyay ee horay Soomaaliya u soo maray maanta dan gaarana ma hayaan tii caamka kama ayan shaqeyn marka dhammaanteen waxa waajib nagu ah inaan danta caamka u wada istaagno Soomaalida maanta taariikh cusub oo samaysmaysa waa maanta in Baydhabo la fadhiyo waxay ka mid tahay taariikhda cusub taariikhda jiilasha soo socda ee caruurteena marka wax loo sheegi doono la dhihi doono markii burburku dhacay kadib sidaan ayaa dawladnimada Soomaaliya ay ku soo dhisantay oo ay ku soo noqotay oo ay ku timid maanta marka maalmahaas la sheegi doono mid ka mid ah waay marka waa taariikh samaysmaysa waan ku faraxsanahay inaan dhammaanteen u wada joogno oo aan ka wada qayb galayno gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka hadlay kulanka ayaa xusay in ahmiyad weyn ay leedahay inay iska kaashadaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada arrimaha lagu horumarinayo dalka sida arrintan muhiimka ee doorashooyinka dalka la filayo in sanadkan ay ka dhacaan marar badan markii la isku yimaado shirarka noocan oo kale runtii waa mid aad iyo aad u wanaagsan dalkana waxtar u leh dastuuriyan oo ay dow tahay in mar walba lagu soo celiyo waayo waxay mar walba midaynaysaa wada qabsiga iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo kuwa goboleed runtii taas ayaana dastuurkaygu na faraya oo inaan dhisno qaab federaal oo ah federaalka iskaashiga loo yaqaano ama cooperative federalism ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka shirka ayaa wasta ka xariiqay in ajadooyinka looga hadlayo kulankan ay yihiin kuwa dhaxalgal u ah hirgelinta taariikhda Soomaaliya maanta ajadaha wasidii sheegay oo furitaan weeye oo ma hadda ilaa qodasho ilaa maalintii bilowday ilaa had ee taariikhiin oo ugu horeysay anaga dad isnugu dhaxjiro waxa la soo gaarsiiyay meesha maanta ay taagan tahay wax badan oo qosoomay wax badan oo lagu heshiiyay haddana qodobo dhowr ah oo waxa ku jira ajadaha muhiim ah halkaan markaan ka tagay inaan ka gaarno faham si inta habtay ee doorashada hadda ka harsan process u sii socdo qodobadaas rajaynayna insha Allah inaan noo soo socdo aan soo gunaanno maxamed cumar carti ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in hogaamiyaasha Soomaalida ay si wadajir uga hadlaan masiirka ummadda Soomaaliyeed taasina ay horseedayso in dalkeenu uu gaaro horumar siyaasadeed oo waara هذا الجلال واحد السكرة مر والبابا اللي واحد استولى يدين نبضة وأنا بتاعي أريد السياسة أي حاجة ما كان كذا متاجرنا ما إن شاء الله تعالى مر والبابا اللي هرو تاجرنا ويترتي وعنو بهم ما كان هذا هرو قص هلا اللي نسبي يقوم به هم كنا لقد وقت وحويا إن أينو
heshiisyada aan ku gaarno haddii alledno way ka mid yihiin waxyaalaha ajendaha noogu qoran wax badan bay dadkeena naga filayaan wax badan bay sugayaan inaynu qabanno. madaxda maamul goboleeda ka jira dalka oo si wada jira uga hadlay shirka ayaa rajo weyn ka muujiyay in shirkan ay ka soo bixi doonaan go'aamo lagu xusi doono taariikhda iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. runtii waa fursad aad iyo aad u wanaagsan mar kasta magaalo ka mid magaalooyinka Soomaaliyeed madasha shaqada lagu qabto maxaa yeelay waxay qayb weyn ka tahay dib u heshiisiinta iyo Soomaali inay isqaadato waxay qayb weyn ka tahay isdhexgalka bulshada iyo isfahamka ay qayb weyn ka tahay sharaf weyn ay noo tahay maanta inaan baydhabo joogno. waxaa shaki la'aan masaalixda shakhsiga iyo mid caamka inayna wada geli karin meel haddii aan maslaxada shakhsiga dib marin oo tacaamka la soo hormarin oo masaalixda shakhsiga la hormariyo inteenaan hal maslaxa laba shakhsi oo heshiis ku ama jirto shakhsi waliba shakhsiga kale maslaxadiisa kuma jiro laakiin halka maslaxada caamka haddaan ka wada shaqayno oo taa caamka yoolkeen oo noqdo oo iyada aan joogano waxaa hubaalay nin waliba ugu helayaa masaalixdiisa. waxaan rajaynayaa marka in runtii waxa weeye hadda ku yiraahdo ajendaha weyn laga hadlayo arrinta iyada weeye in isku fikir laga ahaado isku aragti laga ahaado isbedelkaasi dadkuna naga filayaan anana ay maray dhamaantay inaan daacad ka nahay inuu si sax ah u dhaco runtii isku fikir laga noqdo oo lagu dadaalo in waxa dadku ay naga rajaynayaan expectation dadku ay naga leeyihiin inaanu eegno kuna dadaalo in runtii aanan meejin iyaga waxay naga filayaan amro naga soo baxaan. shirka madasha hogaamiyaasha qaranka iyo kuwa maamul goboleedka ka jira dalka ee maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 3 cisho ah isla markaana laga soo saaro go'aano lagu dardargelinayo hirgelinta doorashada dadban ee sida wadajirka iskula qaateen hay'adaha dastuuriga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Baydhabo.